sheekh Axmed oo 85 sano jira shaqada uu maanta hayaa maxay tahay? bismillaahir rahmaanir rahiim. shaqada hadda maanta aan hayaay waa shaqo business oo caafimaad ah. waxaan dadka xanuunsanaya dawooyin harbal ah waan ku soo bartay intaan iman joogay ayaan dadka ku daweeyaa. 2015 bishii shanaad yani mid waddanka Itoobiya anoo Yaman ka yimid marka dagaaladii ehliga ay ka dhaceen Yaman ka dhaceen hay-ad baan na qaaday oo nageysay Sacuudiga. haddana waxayna keentay Addis Ababa, halkaasaanu ka soo gallay waddanka oo saasaanu ku nimid. markii waddankii aan imid waddankii wax hantiya lamaana imanin oo Yamanta waa dad iska yara dhacay oo hoose weeye. marka arrintaydii waxay noqotay markaa inaan aan hawl faraha la galo waxyaalahan xagga daba orda dowladaha iyo waxyaalahaasna anugu inta badan kuma jecsan. shahaadooyin baan wataa oo Ciraaq ah, Baghdad ah, 19 sano oo waxbarasho tacliineed oo iskuul dhigi jiray Yaman waan haystaa. wax yani aan maanta ku shaqo tagi karo waan haystay. maadaama da'dan aan xoogaa haddaan yar weynaaday waxaan sidii meel iska fadhiiso oo sidii markaad Yaman joogtayba dadka aad u caawin jirtay wixii la xidho iyo wixii mataqaanaa la waayay iyo wax walba aad uga qayb qaadan jirtay. berigaa wixii la xidho oo Yaman intaan joogay inta badan maadaama dowladdii macruuf ka noqday inta badan soo dayntooda lug baan ku lahaan jiray. dadka waxaa lagu xidhi jiray meel aad iyo aad u inkaaran. marka halkan kaada yimid shaqo aan qabtay aan ugu danaynaya dadka aniga dantayda ma aha oo dawooyin ah. intaan meel intaan iska fadhiisa makhaayadaha iyo hoteelada iyo aan sheeke iyo muxuu ahaa fadhi ku darar aan geli lahaa waxaan sidhi meeshaas iga asturow dantaada waqtina masaajidka iska tag dadkana anfac. dadka waxaa u fiican malay ninkii naftiisa anfaca dadkana anfacaa lay aakhiriya adduunka naftaadana anfac nafta kalena anfac. waxaad anfacaysaa ama dunyahaada ama dagaal ama dad ha ahaada wax kasta ahaada bisada aad biyasiisay baad ajir ka helaysa. marka hadda arrimahan hayaaye waa arrimaha harbalka dadka aan ku daweeye weeye. waa ilaahay xamdigi aad iyo aad baan isaga fiicannahay. nimcaa lagu jiraa. jigjigaan joogaa intaas 2015 Addis Ababaan 2 sano meelaha joogay. intii ka dambeysay halkaan aan ku noolahay aad iyo aad baan kugu mahadinaya. dadka kuu yimaadee kugu xidhan halkay kaaga yimaadaan? dadku waxay iga yimaadiin gobollada way ka yimaadiin. inta badanna magaalada aan caasimadeen joogno yay ka yimaadiin. marka waxaa unu yar dhigtay guurguurka markii aad muddo ku jirta guriga ninkii guriga lahaa wuxuu qoranayaa iga bax waan gadayaa ama waxbaan noqonayaa ama si baan noqonayaa. marka geedigaasa waxoogaa dhib keenaya ruuxu inuu meel hanti a leeyahay iyo ku fiican lahayd markuu wax qabsanayo. intaasaa waxoogaa dhib ka jira. mid baan hadda ku jiray u dambeeyey waa lagu dulgatay. sidaas wey. mid kale ku horreeyay ilaa 4-5 guri baan soo maray. ilaahay mahadi baa la qabaa. anigu inaan ka faa'iido uma furin inaan dadka u faa'iidayaan u furay. gobollada laga yimaadaa oo ay meelaha ugu fogfog xataa xagga Soomaaliya lafteeda Galkacyo iyo Dhuusamareeb intaba dawada way qaataan war u jiraa. hawlahaygu waa sidaa.